بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكثن لمان صاحب هذا إلى السعودية هذا إلى السعودية لما أنتم عيد الله يسود وهذا ملول بوجوكتان وقت قاعدين وعناضو إلهي لمانتين إن شاء الله تعالى أنا حفظيو إلهي أنا بركة إن شاء الله تعالى حرجينا إلهي إن أمورها لنا ونسأل هذا أما سنتين وبرنامج runtii ka mid ah barnaamijyada gaarka ah ee aan ka hadalno waxaan idin leeyahay idilkiinba soo dhawaada caawa waxaan ka hadlayaa mowduuca kor ku qoran iyo sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dadka NGO-yada daryeel iyo wax baa samaysto islaamaha xamar ay ku wada qayli jireen akoonada u dhiibtay dadka abaaraha haysta ku qaraabanayeen waa ka hadlayaa laakiin mowduuca ugu muhiimsan ee aan ka hadli doono waxay tahay waan rabaa caawa inaan ka hadlo siyaasiga Faarax Macalin oo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya ah oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Muqdisho uu ku casuumay wali yaa arkay dhamaantiin aan idin salaamaya commentiin oo aqrinaya fadlan sii share gareey fiidiyoga waxaa la rabaa dadka inay xaqiiqda istusaan waxa muhiim ah dadka inay xaqiiqda istusaan wali Faarax Macalin oo siyaasi hawiye ah taageeraya lama arkin inuu dadka ku diro uu ku soo jeediyo mooyaane Faarax Macalin oo siyaasi hawiye taageeraya wali lama arkin inuu yiraahdo Ethiopia u shaqeeyaan Hiblaaye ka dhacday inuu yiraahdo laakiin hadda markii Farmaajo la doortay Muqdisho lagu casuumay Faarax Macalin hadda Faarax Macalin ogaaw Faarax Macalin waa ogaadeen Soomaalidu waxa la rabaa inay runta isku sheegto ogaadeenna waa daarood maxaa ugu wacnaa Faarax Macalin in wasiiradii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu barbagaan uu u sameeyo 24 saac uu barbagaano aniga fikirkayga xurban waa iyo aragtideeda Faarax Macalin gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ahaa muxuu 24 saac u mucaaradi jiray dawladda Xasan Sheekh Maxamuud muxuu u mucaaradi jiray dawladda Shariif Sheekh Axmed hadda qabyaalada ahayd ee wadannimo kama ah Faarax Macalin haduu wadani yahay Kenya muuse hoos fadhiisan lahayn baarlamaanka Kenya inuu ku jiro Kenya muuse hoos fadhiisan lahayn oo asaal haysta Kenya haysata Faarax Macalin Kenya haysata asaal haysta gumeysigu u shaqeeyaa Kenya hadda Ethiopia waa gumeysi Kenya maxalaala Kenya waa xalaal dad fiican hadda hawiyaha markii la dirirayo maskaxdana waa laga diriraa qaab aqliyasanna waa ay sheeg waa lagu diriraa kuwa waxay ku leeyihiin Faarax Macalin waa wadani هذا محو ودني ياهي أساك كي وشقي برلمانك كي كترسنو قميستها كي كترسن Faarax Macalin هذا صفي يعني مغلق Faarax Macalin ما أنت محو مقدشو وعادي مقدشو وحو عادي فرماجة عزومي فرماجة شرف لا ويني أطهي أو وحي أطهي نعسلمي أطهي قبيالة ذي كتهي إن Faarax Macalin وقاعدين أهان أما دارودني وقولف قولف أجد عليك تعال فضلا سيشر قريه صفي يعني دقيست farmaajo ceeb bay ku tahay qabyaalada heerkaas inay ka gaarto oo Faarax Macalin ogaadeenimo ama daaroodnimo uu casuumo si uu kala tashto wasiirada uu soo magacaabi doono Faarax Macalin baarlamaanka Soomaaliya ku jira kuma jiro baarlamaanka Soomaaliya Faarax Macalin baarlamaanka Soomaaliya ku jira kuma jiro hadda waa baarlamaanka Kenya qabyaalada heerkaas gaartay oo maanta keentay in Faarax Macalin daarood ahaan uu u casuumo si uu ula tashto farmaajo uu kala tashto golihiisa wasiirada قبيالة فرماجة واي مدحوينه هنا قبيالة دي سواي محو شرك كو عينا اللي بانك كي كترسل Faarax Macalin دولة دي Xasan Sheekh Maxamuud محو كو عينا محو سكو عينا دولة دي Shariif Sheekh Axmed هاوينيمو كودي دنا مدن Faarax نكلي Faarax مدن Faarax Macalin وحو كودي دنا هاوينيمو Faarax Macalin هاوينيمو أيو كودي دنا دولة دي Xasan iyo دولة دي Shariif هذا بيو وطا Faarax Macalin وهذا وكان بنقرينا إن وزير لقديو وزير يوكان بنقرينا هذا حتى وسمين لها برامج تجري حاج محمود عبده وصاحبك وأنا ربنا نكوفه قادو لك ساعة أو أسمرك كترسن هذا إريتري مولا له هنا إريتري ولا له الصومالي ما إريتري أو إريتري كترسن أيها كمدا ضدك وكان بنقرينا أيو إن وزير لقديو كم فوقنا أي نك أقدرنا وكان بنقرينا هذا Faarax Macalin ونعبيها إثيوبيا أما إثيوبيا عدو أركو نكل إلى Faarax Macalin هذا إثيوبيا ده عدو تاع كينيا وعدو إنها تصبح الدور كقل لا دقالن كينيا Faaraxow xilwaanimada Kenya iska casil
waxaaga Ethiopia nacab maaha waxaaga waa qabiil nacab hawiya nacban tahay digli mirifla nacban tahay qabiilada oo dhan nacban tahay farax macallin wax runta ku sheegaa laade waxa muqdisho hada dig ayada xukuumadii la soo dhisin gugeeyay oo muqdisho gugeeyena waa nacabka qabiilada Soomaalida qaarkood farax macallin oo xildhibaan aad u qabtid okay farax macallin uu oleynaya uu wada maanta Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane ayuu wada oo nin awliyahana ogaadeen Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane aan naqdo awliyahan ogaadeen ay malaha hadda Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane muxuu yahay Cabduqaadir wuxuu ka tirsan yahay jawaasiista ugu waaweyn ee Ethiopia wax ka qaata Eritrea wax ka qaata laakiin Ethiopia dhalinyaro Soomaaliyeed oo badan ayuu u mishimay Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane farmaajo Ethiopian maaha farmaajo hadda waa Sheekh Shariif Xasan Maxamuud Ethiopian aha Xasan Maxamuud Sheekh Shariif ay Ethiopia caamilin oo ay farax Cabduqaadir iyo farmaajo waa nin nadiif ah ha farmaajo Ethiopia ayaa rabta abwaan Nuur Ismaaciil oo ku waayay aadan ku salaamay abwaankayga Nuur Ismaaciil Sheekh commentiina waa akhrinaya si fiican ii dhageysta Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane yuu yahay Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane wuxuu la shaqeeyaa ciidamada Ethiopia sirdoonka Ethiopia ayuu ku xiran yahay Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane misaal yar ayaa idin siinaya kuwa horta waxaa jira Ethiopia inay nacbiin afka ka sheego waxay kula dirirayeen waxaas dawladihii hore ee Shariif iyo Xasan madaxweynaha ay ka ahaayeen oo hawiye nacaybnimo loo qabay ayaa lagula dirirayay bal maanta arwaykaas kuwii hadla jiro qeylin jiray arka ayagoo dhahaya ee meesha Ethiopia haysata Ethiopia wadanka maamusho ayagoo dhahaya ma arkaysaan ee waxa dadka lagula diriro waa qabiil maanta marka waxay ku leeyihiin maanta qabiilka dhamaaday alla ilaahay maanta la gaaray horumar maanta la gaaray isheeg la sameeyay waxa maanta la gaaray dawladnimo maanta waa ka baxnay Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane oo maanta farax macallin qaabka qabyaalada uu wada farmaajada wasiirada uu kala tashanayo walaalkiis Rashiid Xaaji Maxamuud Dhaqane ma taqaanin Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane walaalkiis Rashiid Xaaji Maxamuud Dhaqane waa gudoomiyaha baarlamaanka federaalka oo afayeenka baarlamaanka federaalka Ethiopia Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane Rashiid Xaaji Maxamuud Dhaqane ha farax macallin waa nin nadiifa farax macallin waa geesi hadda markuu caynaya hawiyaha iyo digli miriflaha iyo qabiilada farax Cabduqaadir iyo caynaya iyo wasiiradii ka tirsanaa oo ka dawladda Xasan Sheekh markaas wuxuu ahaa geesi hadda maanta runta inay Soomaalidu isku sheegto waay Soomaalida inay runta ninka maanta uu wado Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane awliyahanka walaalkiis Rashiid Xaaji Maxamuud Dhaqane waa afayeenka baarlamaanka Ethiopia okay Seenab Xaaji Maxamuud Dhaqanana waa haweeneyda qandaraasyada Ethiopia iyo kan kilinka shanaad ba haysata Seenab Xaaji Maxamuud Dhaqane waa gabadha haysata qandaraasyada kilinka Ethiopia la rabaa moogtiin Rashiid Xaaji Maxamuud Dhaqane waa idin sheego waa afayeenkii baarlamaanka Ethiopia okay ka soo tag gabadhan Seenab liiraada Seenab Xaaji Maxamuud Dhaqane Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane la dhalatay waa gabadha bixisa lacagihii dadka uu ku afduuban jiray markii uu kala dalaalo dawladda Ethiopia dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayuu Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane gacan geliyo Ethiopia maanta farax macallina daaroodnimo u wada hada daaroodnimo hal raa Soomaaliyeed runtu isku sheegto farax macallin inuu daarood yahay oo ogaadeen yahay oo nin kabla oo artay nin kabla oo ogaadeen inuu yahay baarlamaanka Kenya ka tirsan yahay ma diidan waa sax alla ilaahay laakiin waxa diidanahay shalay Xasan markuu joogay asukana san waay wasiirada qaarkood uu feeray geesiga farax macallin war ninkan geesi ma ninka asaa gumaysi hoos fadhiya Kenya haysata baarlamaanka Kenya nimanka Soomaaliya dhulka Soomaaliya Kenya siinayo waay farax macallin waa ninka baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Kenya ka tirsan oo Kenya siinaya dhulka Soomaaliya Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane Muqdisho Puntland gobolada dhexe dhalinyaro badan oo laga afduubo oo in lafta ka tirsan qolada Ethiopia aadka ula dirarta ka tirsan asaa mas'uulka ahaa oo afduubay oo u gacan galiyay Ethiopia hadda farax macallin maanta waa ku ayaan daro farax macallin maanta waa ku ayaan daro boqorada jamaad Jesto waa ku salaamaya boqoradeeda walaash bay macaan Jesto ku salaamay dhamaantiin commentiga waa kana fiiriye maanta waa u ayaan daro in ninka noocaas oo dhalinyaradii Soomaaliyeed xaq u dirarka ah oo lafta ka tirsanay dagaalamayay gacan gelinayo Ethiopia kilinka shanaad u gacan gelinay in maanta farax macallin
campaign u sameeyo oo ka shaqeeyo in baarlamaanka golaha wasiirada lagu soo daro dhaqane hadda Soomaalina waa ayaan daro faaraxna wuxuu sheegay hadda anigu faarax muwaadin ahayn wadani ahayn waa ogaa xildhibaan Kenya oo ku jira wadani ah xildhibaan Kenya ku jira wadani ma ah laakiin ogaadeenku wadani u yahay ogaadeenka Soomaalida runtii isku sheegto waa ogaadeen ayuu wadani u yahay faarax macallin ani wadani ma ah hadda muxuu wadani ku yahay dhulkii Soomaaliya raba inuu Kenya siiye muxuu wadani ku yahay isay kartaa waxaas wadani ku yahay asaa baarlamaanka Kenya ka tirsan asaa ahaa gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Kenya faarax macallin waa gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Kenya ahaa maanta wax xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya hadda sidoo marka wadani ku yahay wadani ma aha وعامل أصلا أشقي كينيا أصلا أشقي إثيوبيا حسن شيخ شريف وحكوها يستقى إنما قبيالات فرع معلم قبيالات أيو كل الدرارة الدولة دي مدحوين حسن شيخ محمود وزير هذا وفيرا ولا الدجال ما قبيالات هيك وحكى لما هين نعاب هوية أو كجرو أيو فرع معلم كل الدرارة الدولة دي حد فرماج بال أيو على دورت بلا كسور رجته دق حمروا هذا أوديك اسماعيل ولي وبسلامة وقاسك مرصدي اوكي نين كان اللي يراهدو عبد القادر حاج محمود بقري مانتا ووضو او كسفوي ايشك جواسيسنimada oo Ethiopia u shaqeeyo maanta faarax macallin u gaan bingareeyo uu leeyahay ilaa wallahi wasiirada lagu soo diraa oo farmaajo rag uu kala taliyay ay kamid tahay in wasiirada uu ka dhigo iyo qabyaalada farmaajo heerka ay gaarsiisan tahay waan ka hadlayaa laakiin dhaqane ninka la yiraahdo waa la og yahay Nairobi wax ka dhacay Nairobi wax ka dhacay waa wax la wada og yahay ummadda dhan ay og tahay Nairobi maqaayad asoo ku jira Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani wuxuu azuumay dhalinyaro ka tirsaneyd jabhadda ONLF ayuu azuumay warbaahinta meel aan laga sheegay mala warbaahinta caalamiga oo dhan sheegtay waxa azuumay dhaqanaha maanta faarax macallin qabyaalada daaradnimo oo u rabo in wasiirka laga dhigo maqaayad ku azuumay dhalinyaradaas maxay sameeyeen dhalinyaradi maxaa lagu sameeyay dhalinyaradii waxaa lagu sameeyay markay maqaayada ka soo baxeen oo ay ka soo tageen ninka la yiraahdo Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani sirdoonka Ethiopia iyo sirdoonka Kenya sugaay baq gaari la saaray wiilashii waxaa laga riday Ethiopia ilaa hadda cid warkooda haysa cid Soomaaliyeed isweydiisay wiilashii uu afduubay Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani oo Ethiopia loo gacan galiyay hadda ma jirto cid isweydiisa malaha war wiilash intay ku dambeeyeen war wiilash adeeg kula joogeen war wiilash Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani oo adaa hayay aawe wiilash magaceeda idin sheegaya Sulub Cabdi Axmed aawe Soomaaliya waa idin weydiiyay Sulub Cabdi Axmed oo Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani iyo faarax macallin kan Cabdulqaadir iyo faarax nafta u dhaxayso waa saaxiibo hadda faarax macallin uu ku lug leeyahay aawe Sulub Cabdi Axmed idin sheegi kartaan sirdoonka markii maqaayada ay ka soo wada baxeen Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani sirdoonka Ethiopia loo gacan galiyay Soomaaliya aawe yaa meel ku sheega ma jirto hada ay ka iibsanaayeen niman ay ka iibsanaayeen isgadanayo waa niman noocaas ah Sulub Cabdi Axmed iyo Ali Axmed Xuseen yaa meel ku sheega Ali Axmed Xuseen iyo Sulub Cabdi Axmed oo sirdoonka Ethiopia loo gacan galiyay aawe intee ka baxeen intee ku dambeeyeen hada faarax macallinow adiga Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani idin weydiinaya marka faarax macallin waa nin noocaas ah haddii Ethiopia loo shaqeeyo sirdoon Ethiopia iyo gumaysta Soomaaliya la rabana hadda faarax macallin oo ogaadeen ah iyo Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Baqani u shaqeeya wax Ethiopia kay u shaqeeyo waa idinka wax dhulkii Soomaaliya kay siiyay waa idinka hadda farmaajo birita idinka ridaayo aniga waa hubaa inaysan kablalax farmaajo ay sii fiirsaneen farmaajo waa ninka hadda bilaabay in cabud waa diyaaradda ka timaada Soomaaliya cabud waa ka timaaday garoonka Muqdisho ka soo degta wallahi nabay idin sheegeen isbuuci hal mar imaan jirtay isbuuci hal mar ay imaan jirtay maanta ima samar imaada isbuuci ma taqaanin maalinka dhaaf cabud waa dhalinyarada laga soo daldalaa ha dharcad ayaa naqanaysan dharcad waxa leeyahay margidir idinku isleediin isku laajada tiina dadka dhaxgala ne wax la abuuranayo meeshaas ka soo socda aniga waxa ii muuqata farmaajo madaxweyneena waxaan ku eedanayaan wax kale kuma haysto madaxweyne waa inaad qabyaalada joojisaa qabyaalad iyo isirnaayb in ayb qabil waxa ma taro Soomaaliya qabyaaladu way ka soo daashay laakiin hadda markaad faarax macallin xamar aa keento war faarax macallin maxaa ku casuuntay ii sheeg faarax macallin waa xildhibaan Kenyaane madaxweyne farmaajo su'aalan ku weydiiyay faarax macallin waa ninkii shalay ay ka shaqeyn waysa dawladii ka horeyso xaj Maxamed madaxweynaha ka ahaa
dowladdii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ka ahaa faarax macallin ay ka shaqayn weyse oo 24 saac dacaayadeenay war wali golihii wasiirada lama soo dhisin golihii wasiirada wali lama soo dhisin xasan aadan ku salaamaya xuseen naadarkay golihii wasiirada wali lama soo dhisin cabdirashiid xidig wuxuu yahay naftarkiisa ismaaciil wali soo weydiiyey war waa wada jawaasiis aan kula dadkan nooc min jawaasiis waaye kulligood laakiin war aniga horta ismaaciil wali adiga iyo idinka dhammaantiin waxaa idin weydiiyey war faarax macallin dowladdii xasan sheekh maxamuud way ka shaqayn weysay wasiiradii kenya ku feeri jiray qof walba wuxuu leeyahay jaajuus buu ahaa saas buu ahaa hababa war hadda farmaajo inuu raali ka yahay in hawiyaha iyo dowladii war ninkan faarax macallin ah dowladdii xasan iyo shariif way kana soo waayeen wallahi 24 saac ay jiray maanta wuxuu rabaa in Ethiopia rag ay wadato iyo Eritrea Abdulqaadir Xaaji Maxamuud dhaqane oo hadda ay idinka ka sheekeeyo oo saan ah ayuu wadaa ماشي مال إريتريا جواسيست إريتريا جواسيست إثيوبيا إن أورلي راد إريتريا ما تقني إسبايسي لسه يا أبدنا الاعتصام أبدنا الاعتصام وهذا دق دايم لا كالله يا ركيسان نعاب قبيل يربطان على الاعتصام أورلي راد الاتحاد كجوا أيو كجرا سومالي رنتو اسمه شكتو اعتصام هذا مقلة علماء دق ليس أورلي راد الاعتصام يكتر سنين الاعتصام وكوي إريتريا لو صار إسبايسي إريتريا لو قلت سجل ماشي وعاقب صدي كوح قبائلاتكو ضمن عبن او ايك بس ان دديين او هيستا هذا وا عسريين او والله يا ان ايك دديين او هيستان راح عقلي ما ددك قبيلدان سوماليدو دن دد فيعن ليهين دد xun way leeyihiin war hadda xamar waxa ka socda dad aragtaan waa naxaysan nin gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ayaa islaan ومريحان نيكو قدومية محكمة العفان كاه قولوا هولو ذاك يالا إسلام إسكورير أيهين أي وحايس قبصانين عدي قولي دقنيت أو صدح عمود وقولي قصومر أو إيشاك لووك لوري عدي يحرنا وحوليها إلا وأنا تكومينتك أكتر وقولي أنا كأسكالسيت تكومينتك كوسي نعدي رحاسني وحاس وحميل قارع معه وحاسو مع اللي مدو بحلو سكوسو بابي إيواي فارح معلن نينك اللي يرادو وانك النوع عاسو عيدي شيء ما أنت فرماجة أو أي حمر كينه سو ولا تشتو وكلا تشتو وزيرة الدارودي وصوم مجعواي حد فارح معلن ونين كنيانا أو حلبان برلمان ككنيا كتير سنة أو إثيوبيا بين أفكا إثيوبيا نعبنا هاي بي وإثيوبيا ده نعبنا يدور كجلو دجالن كيا لا دجالن كيا كويستين نين أسيجي بالله يستعد كور الله ونحرسته محمد ديري إيه بكون حريصه محمد ديري هذا نين جيسي وإله يكون حريصه نين اللي هذا أو مصعب هالله أو مصعب نين اللي هذا أفيانك إذا ما على الشباب هالله وحيجي إن محمد داير حد وحن جونا جوري محمد داير أكتيس محمد داير جوري ساق بسنو يري هذا جوري قبسان جوري محمد داير ما هنا جوري ننسر قال وموسى جوري اللي هذا ودقيقة هاي حقوق الدين جوري محمد داير مركز الحجر هذين جوري محمد داير قبسان لا حلا وعي محمد داير والله ورست محمد داير وحالي على الشباب جوري قبسته أو مصعب هذا الحوير أريا ومقلع وركيسة هذا هو يديس أبيس على هايستاي هو يديس أبيس تدك هايستا أكحريو هذا هو حريو أبهاي وير محمد داري هذا فرح مع الأبهاي مال حريو هو يديس أبيس كي يلقوا هايستا أهل كيسة فرح مع الكواس وإنه حريا إنه أسيق جمستي كي هايستي وهوس في الإستا وهذا نيرا صومالي الله هايستا صومالي إثيوبيا هايستا وهذا أديك محاطة NFD يا إسكالي NFD يا إسكالي نقول كينيا هي ستيا إسكالي مكيانا إسكالي مش إثيوبيانا إسكالي ورياض الني وحان وقبيالات وحان وقبيل وروحان وقبيالات تي نوع قدام بيسي أو والله يا قبيالات تي قدام بيسي أي الله قدام يا وردتك قيلين جري ما أنت ولما ما قشان أيكو هالله يحصل إجريب ورما هذا شان ما أنت محي إدين دي ده قبيلات شرع إدي كهذه السنين قبيلة سوق هذاي أو حسن الشيخ محمود دهري حسن أو قبل هذا جور ملها هذا ما أنت بحالله يعني قبيلة أول عامسين ما أنت قبيلة أي الله أول عامسين عدي كرت ما أنت الدولة واحد كشيء كرت ملها دولة دينا دولة مليد هذيك دولة دارات دولة مريحان دولة دين معها فرماج وأن عسلم إن مالهم والعبد وقصة ضد ورد دولة دان دولة سومالية دواي هدا دي دين دولة دان عبد واقع كتر النساء دولة دان عبد واقع كتر النساء
maqal Soomaalinimada war Faarax Macallin maxaa keenay inuu maanta kala tashto uu kala Faarax Macallin soo ma aha farmaajo Faarax Macallin soo ma aha ninkii shalay aan jiray dawladii adiga ka horeysay war ila intan oo kale yaa arkay war qofka duu qabyaaladiistay wax iska bedelayn war ninkii Xasan Sheekh Maxamuud maalin walba ay jiray Faarax Macallin soo ma aha codadkiisa hadda YouTube ka gal fiiri war see ku asuntay war see ku keentay in nin Kenyaan sheeganayo inuu Kenyaan yahay aad kala tashadid golaha wasiirada see ku keentay farmaajo madaxweyne aan ku weydiiyay hadda waa qabyaalad wali ma aragteen Faarax Macallin loo jalaal ciidid amaanay wali ya arkay Faarax Macallin aadan Cabdulla Ismaan amaanay ya arkay wali ya arkay Cabdirashiid Al Sharmaak xataa soo amaanay wali ya arkay asoo amaanayo Cabdullaahi Ciise ya arkay hadda Faarax Macallin waa qabyaaladiista wuxuu madaxweynaha uu ugu wacayo hadda uu isheeg uu kala tashanayo golaha wasiirada uu rabo Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Daqan oo jaajuus ah iyo kuwa kale badan oo jawaasiis ah inuu kala tashtana hadda waa isheeg waxa keenay waxa waaye qabyaalad waxa maanta naftirkiisa Faarax Macallin isla dhaqsadan uu ku taageerayo Muqdisho waxa arkay Sakariya Xaaji Maxamuud Cabdi iyo waxa arkay nin kale isla reerkooda ah iyo Faarax Macallin oo madaxtooyada jooga gacmaha is haysta war yaa laga xoreeyay madaxtooyada ma ii sheegi kartaan madaxtooyada ma Ethiopian haystay ama European qabsoo madaxtooyada laga saar waa idinka gacmaha is qabsaday saddexdiina isku reerkooda isku qabiilka ah ii sheeg Faarax Macallin Sakariya gacantan Faarax Macallin la dhaxay la galiyay sawirada hadda aragtaan waa nixaysan hadda isku dayay inay tuso wariya fiiriya saddexda gacmo is qabsadeen war meesha nin abgaalo hawiyo Xasan Sheekh liiraada meesha laga saaray oo laga guuleystay meesha ma Mareykan laga guuleystay ama Yurub meesha Ethiopia haysto laga xoreeyay idinka gacmaha is qabsanayo madaxtooyada iyo meelihii joogo gacmaha ina soo gashataan dhahayo isheeg ba xaswa qabyaalad dad jiifo hurda wallahi billahi ka inaysaan wax kale oo aad sameeynaysan maanta oo wanaag ah oo hadda aad ka shaqeynaysan ma jirto wax kale hadda sawirada meel walba yaalan ayko gacmihiisa haysta Sakariya Xaaji Maxamuud Cabdi qof kale oo soo diraya Sakariya Xaaji Maxamuud Cabdi Faarax Macallin iyo sidoo kale ninka la yiraahdo isheeg iyo nin kale oo asagana isla reerkooda ah oo gacmaha is haysto saan dhahay hadda meesha yaa laga xoreeyay war meesha qabiil Soomaaliyeed aan ka tirsan oo ka soo jeedo madaxweyne ka ahaa nin kale qabiil Soomaaliyeed yimid oo madaxweyne noqday maxay tahay waxaad wadaan qof wuxuu yiri sawirka barferka daacada soo xataa ku jira meel walba sawirka la soo galiyay fiiri saddexdooda waa isku qabiil waa harreer saddexda Faarax Macallin Sakariya iyo ninka kale oo asagana isheeg qolada ka tirsan leh saddexda gacmood saani oo istaan gacmaha hadda waxaas waa qabyaalad farmaajo waxaan aan hubaa waxaad ku socotid digdigta hadaysan joogsanin oo aysan meesha ka bixin dawladdaada qabiila duminayo dawladdaada qabyaalad ayaa duminaysa dawladdaada waxaa duminayso naceeb loo qabo qabiil kale ayay ku dumaysaa war qabiilkan waa qabiil baaxad weyn leh oo weyn oo Soomaalida ugu badan naceebna waxba lagama qaadi karo haddaad jeclaatidna waxa uma soo kordhin kartid haddaad jeclaatid xataa wax ay u soo kordhin kartid wax laga bedeli karo dawladdaada wax ay ka bedeli karto ma jirto laakiin waxa muhiim ah aniga midda iga xanaajiyo hadda dhibkaas iga keenay waxay tahay war Faarax Macallin ilaaha idinku dhaarshay Faarax Macallin oo baarlamaanka Kenya ka tirsan see ku dhacday in golaha wasiirada lagala tashto see ku dhacday in qaab qabiilo daaroodnimo ah uu u yimaado xamar waa baarlamaanka Kenya oo shalay Xasan Sheekh markuu joogo Faarax Macallin xamar yimid lama arkin Shariif markuu joogo Faarax Macallin xamar yimid lama arkin qabyaaladnimo waa qabyaaladiiste waa nin qabiil jecel Cabdullah maxaa keenay diyaaradda in maalinka dhaaf hadda xamar ay u timaado muxuu xataa baar dheer iyo garbahaari wuxuu kala fuquuqay reerku ka dhashay xataa farmaajo kala fuquuqay garbahaari iyo waxaan jubooyinka dagay iyo baar dheer iyo marabo Cabdullah ku waash waxaas waa nacasnimo Soomaalinimo ma aha hor u socodna ma aha waxaad maanta Faarax aad u keento la og yahay nooc Faarax shakhsiyadiisa kuwa maalin dhaas ugu waale Faarax Macallin hadda waa wadani Faarax Macallin hadda waa geesi wax uu wadani yahay malaha muxuu wadani ka yahay hooyadiisi ayadiisi awoodiisi ilmihiisi kan yahaystee muxuu wadani ka yahay ana wax ii sheegay adi asoo la haysto oo dadkiisa la haysto baarlamaanka ku jira
baarlamaanka Kenya wuxuu aaminsan yahay dhulka Soomaaliya ee leedahay in dhul Kenyana uu yahay uu aaminsan yahay nin fikirka noocaas aaminsan oo Soomaalida qaldaayo maali ilaahay keena dadka isra naceeb iyo qabiil naceeb ayuu kula diriraa waxasan uu kula diriraa shariifna uu kula diriray dib u dhageysta si fiican u dhageysta codkiisa wasiiru feeral ugu leeyahay war maxaa keenay wasiir Soomaaliya inaa feerto adiga Kenya iska xurey adiga Kenya iska xurey adiga adaa lagu haystaa gabdhaha ka amar qaadata hadda adiga lagu haystaa farax baan loo Kenya ay ku haysataa Kenya waa xalaal Itoobiya waa xaraan haddana waxa idin leeyahay idinka la haystaa horta idinka is xureeyay meesha dawladdu ay ka jirtana waa Muqdisho dawladda Soomaaliya la sheegay Muqdisho ka jirtaa war wali wallahi intaan noolaa intaas wax dhageystaa 24 saac aqriya faarax macalin qof hawi amaanay markay inuu la diriro oo dawlad walba uu caayo mooyaane marka waxa idin leeyahay ma taqaanin ninkaas hadda xamaru joogaayo xamaru fadhiyaayo xamaru ishag uu dhax jiifaayo xamaru joogaa waxa u qaatay xamar inay naqatay meel ay leeyihiin ayakiyo meel ayaka haddana faarax macalin oo ilaahay ka baq waxaad sameynaysid wax fiican oo ku fiican oo hadda dawladnimo ah iyo Soomaalinimo ah war damiir Soomaaliyeed malihi nin la haysto damiir Soomaaliyeed ma yeesho aniga waxaan ku sheegaa waaqeen war Kenya dhulka Soomaaliya ay ka haysatay yaa iskale Soomaaliya iskale dhul Soomaaliyeed waay dhul Kenyana ma ah meeshta laga soo doortaa lagu leeyahay xildhibaanada Kenya ku jira markaas Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkiisa madaxweyne ka ah oo xamar joogo Muqdisho madaxtooyada madaxweyne ka ah oo xamar jooga oo 24 saac uu leeyahay Itoobiya ku maamusho war hadda adiga ku maamulo faarax macalin hadda adiga ku maamulo cid ku maamusho ii sheeg waxaaga marka waa qabyaalad faarax macalin waxaaga waa qabyaalad ninkan xoolo yahanay aad la ordaysiday Cabduqaadir liiraado Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Baqrana waa jaajuus dhalinyaradi oo lafto xiray oo baabiyay Itoobiya wuxuu u baneynaya mar walba in dhulka Soomaaliya la siiyo hadda kuwa kale wasiirada daarad aad tirinaysid kuwa noocaas oo Eritrea Israa'iil iyo Baqti u shaqeeyo waa runta ku sheegay kuwa kala tirinaysid farmaajo dad nadiif ah waa in la soo xulaa wasiirada kuwa adiga keenta waa kuwa qashin ah lama qaadan karo sidoo adiga ba isag daahir ahayn maxaa yeelay adaa Kenya ku haysta maskaxda laga haysta aqliga laga haysta cilmiga laga haysta meel walba laga qabsaday naceebka qabiilka faarax macalin iska dhaaf midaas waa midaas faarax macalin iyo Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Baqrana waan ka sii hadlayaa naceebka ku jira qabyaalada ku jirta la shaqeynta Itoobiya Eritrea Israa'iil iyo meelaha ku xiriin waan ka hadlayaa laakiin Soomaaliya mid ogaada waxa jira kuwa badan oo iska dhiga inay nacbin yihiin Itoobiya kuwa badan oo iska dhiga inay nacbin yihiin Kenya kuwa badan oo iska dhiga inay wax nacbin laakiin waa been waxaas ma nacbanay qabiilkeen nacbin yihiin qabiil ay nacbin yihiin ninkan arintiisa mariixana maxkamadda afaanka haysta ninka maxkamadda afaanka haysta ee hadda raba guriyi inuu boobo oo dhahay asagana xoog waa in hadda guriyaha laga baxaa arintaas waa ka soo hadlay waa arin ayaan darra ah oo eber ah oo meel ay ka jirto adduunka weligeed wax dhacay ma war keen ilaa waxaa keentaa gabadhan isku reerka aan nahay guriga iska leh keen gabadha Safiya Maxamed inda yaraal yiraahdo gabadha dadka guriga ku haysata maxkamadda rafaankana Saalax Sheekh in la yiraahdo haysta Saalax Sheekh Ibraahim waxaad wadid wax soconay ma dulmiga ka dhaaf dadka Muqdisho dega ka jooji dhibaatada awal kor lagama sheegi jirin maanta laakiin meel walba laga soo cabaadaya midaas waa midaas Soomaaliya idin kamid ah in leeyahay haddaad sadaqa baxsanaysaan oo abaara dad wax lagu deeqayo wax aad abaara bixinaysaan waa inaad u dhiibtaan guddiga abaaraha oo dad wadaadey ay ku jiraan dad ahlu sharaf ay ku jiraan dad dhaqaale ah ilmo Facebook ku wareeray oo hadda mid walba wariye ah amnu meel soo fariisto xiir waxaan dhisay guddiga la yiraahdo lulaha guddiga daryeelka bulshada aan dhisay kuwa Facebook ka soo hadlaya islaamaha wareysanay hadda islaamaha maxaa gaagala adiga waxa tahay meel xisaabsan tahay cidda ku dhashay iyo reerkaaga iyo hadda hooyada inay carabta ay ani maqlee daryeelka bulshada furay magacaaga sheega waana loo dagaal hadda ma ogaaw daryeel bulshada furay islaamaha xamar aad kula qiilaysid waxa la qiilaysid inaad lambarra u dhiibato aad tiraahdo lacagta ali aruuriyo lacagta Soomaalida cuntid hadda waa ku nacasnimo waa ku doqonnimo xaraan hadda cuntidna shay xaraan ah hadda cuntido dad masaakiina loogu tala galayna aakhirana cadaab baa ku mutaysanaysaa adduunkan waxaad kala kulmaysaa sharaf xumo adi islaamaha la wareysanay maxaa gaagalay eedada ma aha hadda habareerta ma aha wixii kula ma naqaan hadda islaamaha wareysanna sheegtay 100 islaamaha wareysanna 100 islaamo
islaama boqolaa sheegtay 200 islaam adiga dantaada raaco dadkan masaakiinta ku qaraabatiin Facebook hal qof ma loo qof Facebook la soo fidisana hadda waxa lagu leeyahay waa in la caawiya hadda awaara waa in la caawiya waxa lacag lagu cunaa caloosha ka soo dhac ilaahan ka bariye caloosha ilaahay ka soo rid xoolo xaraan hadda cunto isbaarooyinkii xamar la dhiga jiray meelaha la dhiga jiray hadda kuwa meelahan iska yimaadaan Turkey European taleefannada xamar la sameysana akoona la sameysana hadda lacagti ay ka cunaayo ilaahay iimaanka idinka qaad war guddi abaaraha jira guddiga abaaraha ama dad lagu kalsoon yahay lacagaha lagu dirsado haddii kale ogaaw adiga waxaaga sadaqo uma bixinina faan baad u bixisay in Facebook laga sheego wax kale oo u bixisay malaha in magacaaga Facebook laga sheego ayaad u bixisay lacagtaas ee maadan u bixinin sadaqo waa tuugo wallahi islaamo isla qiilaan xamar ah telefoonada lagu qornaa hadda ninkan qiilo aan tukanino salaad ilaahay xataa aan tukanayno hadda maxaa lacag lagu aaminaa ninkan nacaabka qabiilka ku jira tuuga ah nacaabka qabiilka ku jiro seel lacagtaad ugu aaminay nacaab qabiilaba ku jiray nacaab qabiil ayaa ku jira nacaab qabiil ayaa ku jira oo meesha la fadhiyaayo baqti iyo baahi ay ku dishay baqti iyo baahi aan meel ku dishay see ku aaminay aduu ku nacban yahay isirkaagu nacban yahay qabiilkaagu nacban yahay 24 ka sac awliye ilaahay iyo malag la soo diro farmaajo kaaga dhiga see ku aaminay xasana farmaajo malag ah waraa muwaalanta adiga tug baa tahay nacaab qabiil aan kugu jiro nacaab qabiil iyo ducfinimo iyo iimaan daro qabiilka xaq u leeyahay inuu xaqiisa raadsado qabiilka xaq buu u leeyahay inuu xaqiisa raadsado qabiilka in qofkiisa uu amaanto xaq u leeyahay farmaajo reer buu ka dhashay niman la yiraahdo isado la yiraahdo mariixaan reer diin reer dalal ka dhashay kulli way wada amaanayaan irkaas ay marayaan telefoon ay soo gal raan laga irkaas ay marayaan oo way wada amaanayaan hadda xaq baa loo leeyahay in isha ragii hore meesha joogana la amaano adiga kama hadli kartid qabiilkan hawiyaha la yiraahdo xamar degada muqdisho dega eelaboorka iskale degada muqdisho iskale oo dhulkaas xamar oo dhan leh inay hadlaan xaq bay u leeyihiin adiga waa ku hoos nooleed cid wax ku dhigi jirta malaha waliga ayaa tahay laguma dhihin inta ka timid laguma dhihin markaad boosaaso aadayna waxa lagu yiri agaasimiye wasaaradda maaliyadda gabadhiisa islaantiisa u dawo mareysay ee ka bax boosaaso waa naftaada la soo carartay hadda waxaan ku sheegaa mantaqan fiiri oo wallahi billahi idin dhaarana boosaaso waxa la yiri agaasimiye wasaaradda maaliyadda islaantiisa u dawo mareysay la qalqal galiyo islaanta u dawo mareysay la yiri hadda saasa lagu soo cirsanaa meesha aadid xamarna si nabada ugu nooshahay waxa leedahay dadka hawiyaha xaqooda kama hadli karaan dadka hawiyaha xaqooda kama hadli karaan leedahay hawiye xaq u leeyahay inuu xaqiis ka hadlo fadlan sii share garay video hawiye hadda xaq u leeyahay inuu ka hadlo aragtidiisa hawiye xaq ay u leeyahay in la amaano adigana ma dhigi kartid yaa la amaanin ma dhigi kartid islaamaha ra'yigooda cabirayaysan ka hadli ma dhigi kartid saa u dhigi kartaa adiga ana baahan ba Facebook aan ka qaraabanay dhaay lacagaha ii soo diray shaqo kale aan qabataa weys hadda caaw soo firisto aan dhaw wallahi sadaqa la arurna Soomaalidu waa iska ma yaqaanin moogta qofku wuxuu yahay lacag wala iska diraa ballaq 10 euro 50 euro war guddiga abaaraha u dirsada qaa'in kala jirno lagu eedeeyay inuu islaamo Soomaaliyeed oo niman qabaan u dawo mareeyay yaa waxa lagu dirsanin run marabtaan oo nacaab qabiil ku jiro iyo baqti iyo qurun ku jiro waxa soo kale wax lagu dirsado ma iska ilaaliyo waligiin ninkan Abu Bakar Xasharo wariyo weyn ayaa soo galay Abu Bakar Muxudiin Xasharo waa macallinkayga Maxamuud Carab wuxuu yiri Xasharo way dhaaf commentigiisa waa inaan soo celiyo Xasharo waa soo celi waa inaan ku soo celisaa commentiga Abu Bakar Muxudiin Xasharo waa nin qadiyad fiican hadda waxa idin leeyahay Faarax Macallin ninka la yiraahdo Faarax Macallin naab qabiila ku jira Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Daqan uu wadaa hadda Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Daqan maalinta maqashaa in golaha wasiirada uu ku jirana farmaajo ogaada qabiiladiisa heerka ay gaarsiisan tahay ogaada hadda farmaajo aniga intaan noolahay Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Daqan iyo kuwa qabiilada ka shaqeynaya Itoobiya u shaqeeyo wallahi kama aamusayo habeen iimaan waa ka hadlaa dhaqane waa tuug dhaqane dhalinyaro Soomaaliyeed ay u gacan galiyay Itoobiya Faarax Macallin nacaab qabiilka hawiyaha ilaaha ku jira sida munakay maalinta aan kaga hadlay ay tiri munakay markaan ka hadlay hatta dan nacaab ku jira farmaajo markii la doortay maxaa munakay meel walba aa kaga qaylisay maxaa xad Sheekh Maxamuud markuu madaxweynaha u dheysay isbedel loo baahan yahay isbedel هذا يسبدل كأول ليش معاه قبيل كان لقوا رجع قبيل كل يماذا وين أنا ما كان دارو يا هذا النعيب كوجرو فارح على النعيب حن كي أقول ما يكوجرو الساق الشقي توبي كي يعني بين ليشين
بين اللي شيء كو حاجر إثيوبيا dadka abaaraha loo gurmado gudiga abaaraha casharow waa in lacagta loo dhiibaa laakiin ilma Facebook iska fadhiyo meelo fadhiyo hadda ma aqbali kara aniga oo soo caynaya qabiil kale ay ka rabeen dad caayaan ma aqbala in loo dhiibo waana ka diraa arintaas magacyada shakhsiyaadkaasna waa idin soo gudbinaa tuugada waan ka sheekeynaa aniga hadda diyaar u miina magac sheeg laakiin waa idin soo gudbin doonaa waa idin soo gudbinayaa aniga qofka haduu nacban yahay qabiil lima tuso qabiil ma nici kartid aniga qabiilada Soomaalida dhan waa jeclaa laakiin qabiiladan nacbanahay xaq ayaan u leeyahay inaa hawiye amaana aniga muqdisho inaa amaano xaq ayaan u leeyahay waa ku dhashay sheeko waxaan noo kanteen ayal xamrana habartay hadda eedada ayal xamra idinkaana baray qabiilada hadda faarax macallin loo da'diis intaas jirtaana baray qabiilada xaq ayal xamar ku tahay حد أي الحمر كتاي أذاب النبري فارح معلنه أذكر أي نبري قبيلته أصيغ فرماجو شن بالدورن سؤر ده يحمر عادي شلون الشيخ شريف في عينه حسن الشيخ حسا أردو حمر عادي مركب فيريه ولا واحد الله هير كان جارسيسان ماشى بكتام بهشة ماشى خلينا قبيلة دماغي واحد دماغي مجرو شري سؤال بقى يسوي دي هل قف يجلسوا جواب مال العاد قف يجلسوا جوابته هو إني كرت نظام كذا قبيل كل يجود بين مرها هذا محاير ويوجد نفس الكود إنه فرتك أجلنا قبيل اللي استاعي أو حد عادي شلون مركز عشق محمود عينيسي هو شخص جريف عينيسي إنت كنا يسمى لها قبيل اللي استاعي قبيل اللي استاعي إنت كنا يسمى لها ما عاد قد يدي بانت أنا عني هلا فارح مع هذا ما أنا قال قلدر بس فارح معلنا قلدر فيري فرماجو مدبل كليئة oo muddo bil dooran oo muddo bil meeshii jooga ayaa farax macallin soo orday meeshii aad shaanka shaacir nin culus hada shaanka shaacir nin culus oo ugaaskeyga waay horow inuu ka baxayo meeshii aad ayuu meeshii aad nin madax baa isoo waay oday ayuu meeshii aad hada qabyaalad maaha xasan iyo shariif asaa caynay qabyaalad maaha daaroodnimo maaha waxaan idin sheegaa laadiin muxuu xasan iyo shariif iyo shaluu caynay muxuu ku haystay qabyaaladu ku haystay hadda odiga farmaajo qabyaaladiista kuwa badan oo wasiirada la rabo in lagu soo darana waa qabyaaladiistayaal iyo jawaasiis iyo tug Cabduqaadir Xaaji Maxamuud dhaqana Soomaaliya inta nooshiin waligin aaminina kuwa kale badan waligin aamin war dawladiiba nin la yiraahdo hadda korsi sheegay nin la yiraahdo Allah u naxariista Cabduqaadir Oromo bug qoro leeyahay keega lii كاغن كللي ولقيت شكاس وجرت ودك كان مقدشة دقن كوبا والله هذا كلا الله لكن حدا ويسيح وجيست قدك أبارها قدك أبارها أنا وصح قدك أبارها عشان يسوي قدك أبارها نمك الله بحيك أنا والله ما قعاوي قدك أبارها جعان آمنة وإلى جليان العجاه ورنت عشرة جعان لجو آمن كرو أو ضدك جالسين كرتاج جليان هديك كلا نفط الكود وعليه وتقول له بيه قفل لقى جنبنا ملا قفل لقى جنبنا ملا علماء يا خالنا علماء نفط الكود قاركود وقبيلة الاستيال قبيلة لسه متحيين إن عيب قبيل أي لسه متحيين والقبيل كان منع كرت الفرح معلنه والشيخ قبل هبلو قبيل كان منع كرت ما نرجع الآن كرت ضمن من ما ورحد عليه واحد يودي دقيست بركة جوابه ورفارح معلم محو حمر كدوني محو فرماجو عزوم فارح معلم هذا دارود نمو عزوم الشلي فارح معلم صومها نك حد شيخ محمود عيناي أو صومها نك شيخ شريف عيناي أصل صومها فارح معلم ورفارح معلم ما أنت إن وزيرين لقيت تستمسحها صومالية أنا يقف يسوع جابو قبيل والله وركيسكم مجرو تكسر الله هذا واحد عنيك waxaas uma jir laga ma yorto barabta ay iga sugina qof hebel la yiraahdo ayaa waxaad isoo dheh inaan dhaho laga ma yaabo sharafkayga cizigaan ka weyn Allahu akbar alxamdulillah laga ma yaabo igama sugaysid aniga hadafan leeyahay hadafka ujeedka waxa diidanahay reerkan Muqdisho daga in xuquuqdooda lagu tunto oo wallahi in la bahdilo aniga waa inta diidana waana ka diriraa waxa kale oo diidanahay hadda caawis fiican dhigeysta waxaa sidoo kale diidanahay aniga ninka aniga iga dhashaa fiican ka dhasho abtiga ama adeerka ahna nin xun waay ka yeelima aniga farmaajo ka qaada ma general edit tug dhalu aha Morgan nin fiican waay si fiican ay maqla wariyada Soomaaliyeed si fiican adeer ay dhageysta
farmaajo ka dhageysan ma buugu qorowleeya jiral ciidid diga abu aha aan xino wax qatar ah morgan nin fiican u ahaa hada ka dhageysan ma jaanina waxa dhageysan kara hal mid jiral ciidid nin fiican u ahaa morgan nin xun u ahaa oo maxamed siyaad la soo shaqeeyay markii burburkii kadib dad badan laayay dilay waa dhageysan kara farmaajo waa ka qaadanaa midaas waa ka qaadanaa maxamed qanyara afrax iyo muuse suudi niman xunay ahaayeen hadda bare hiiraale iyo axmed madoobe iyo faroole iyo waa niman fiican ka qaadan ma inta diidana hadda waa ka qaadan karaa laakiin faroole iyo hebel dad xun bay ahaayeen bare hiiraale iyo axmed madoobe dad xun hadda cabdi qaybdiid iyo maxamed qanyara afrax iyo muuse suudi iyo niman fiican ahaayeen hadda idinka waxa rabtaan marka in aan mid qaataa rabtaan ani midaan diidanahay farmaajo buuggiisa wuxuu yiri maxamed jeneraal maxamed farax ciidid ilaahu naxariisto janagay ilaahu naxariisto wuxuu ahaa dhiicab wuxuu ahaa caadaqaato wuxuu ahaa dilaa wuxuu yiri dilaa aan xin oo ay ku yartahay bini'aadanimadu ahaa uu yiri okay waa uu qoray masterka ku diyaariyay hadda dhageysta Soomaaliya si fiican si sheer gareey si fiican ii dhageysta si fiican ii maqla saasuu farmaajo u diyaariyay madaxweynaha saasuu yiri wuxuu xafladiisa caleemasaarka ku casuumo dhex fadhiyo dhex taagnaa wax kala hagaayay jeneraal maxamed saciid xirsi morgan waxay marka ka dhigantaa jeneraal ciidid farmaajo wuxuu aaminsan yahay jeneraal ciidid inuu nin xun oo dhiiga cabo dadka laayahay laakiin maxamed saciid xirsi morgan inuu yahay nin fiican oo geesi ah haliyay ah hadda intaas dadka kale qeylanayo waxay aaminsan yihiin maxamed qanyara afrax iyo muuse suudi yela xoog iyo cabdi qaybdiid inay tuuga ahaayeen oo qaa'imiin ahaayeen oo axmed madoobe iyo bare hiiraale iyo cabdiraxmaan faroole iyo jinni kale iyo jaan kale dad fiican ay ahaayeen ay aaminsan yihiin oo bare hiiraale uu yahay boqor dhalo geesi ah maxamed qanyarana uu yahay tug dhalay muuse suudi tug anigana waxa aaminsan in maxamed qanyare iyo muuse suudi ismaan caadiye dad fiican ay ahaayeen bari hiiraalo uu yahay nin xun hadda saas aaminsan tahay hadda waxa idin leeyahay wax runta idin sheegaa la adiin aniga waxa diidanahay keega ayaa fiican dadkan kale way xun yihiin qaacidadaas qaacida aan maqli karo ama aan dhageysan karo ma aha marka hal mid marka meel dhex waa la iskugu imaan karaa waxaan iskugu imaan karnaa oo kali ah war farmaajana dhaliicayntiisa la sheegaa la cambaareeyo sida xasan iyo shariif loo cambaareyn jiraa loo cambaareeyo wixii xumaan uu sameeyay farmaajo hala sheego shakhsiyadiisa waxa laga sheego waa ogolnahay sida shariif iyo xasan loogu gabi jiro lagu cay jira loo gabiyo hala caayo hadda waa ogolahay markaas laakiin keega nin fiican ah kaaga nin xun ah kan kala abtiga nin fiican ma adeerka nin xun waay ديني أرنتس ديني فارح معلنا بوادنا ودني وجيسي هذا واقع فارح معلنا وقبيلة ديستي وأنا القبيلة دو يكون أنت وأنا جاجوس صح جاجوس هذا جاجوس جير فارح معلنا ما لين إلهي كان أسامة تحت الصومالي عيجري وقاعد نمو عيجري أنا واحد غريب ما كان وحساس الله يعني مجأ لنا قبك عن توصل أتاجازي وحكرش ولكن الله يا فارح معلنا ورفارح معلنا ما عمر بجي ورفرماج سن بل يحوجوا جوجاي ما عمر بجي إيشك ما فرماجو أو عزونت فارح معلنا دارنا أو عزونت يقبيالك وحاس وح في عن ما وحاس وواحد صومالي البابية وحيد الله يهاي صوماليا إن شاء الله وقعمه ويسقب سنة لكن ما أنت معها ماشي عن قبيلة كسعود عط ولوجينو فرماجة مدحوينين أنا مسؤول كقبيلة ده مدحوينين أي مسؤولية كقبيلة ده قبيلة فارح معلم ومد اللي قاعد يسمي مالك وقوله مركب مدبل أي حاجة مركو جو فارح معلم حلبان كيا أي وجوع إنه لا تشت وزير الدار إنه كلا تشت هذا أنت سؤال واحد يدير الجناية خير واحد يدير الجناية يقول واحد يدير الجناية لما أنت واحد يدير الجناية لا هذه حفظي فضلا فيديو قصير قراية وقت قاعدين وإحنا هذا أرنتن فارح معلني عبد القادر حاج محمود دقنا مدف فوق وقت ليرنا وكسر حل دونا الله يود له ويدمو وقت قاعدين وإحنا الله يسير قراية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.